بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ساكا waxaa madaxweynaha ugu yimi ziyaaro rasmi ah wafdi ka socda Jamciyadda Qurumaha ka dhaxaysa oo uu hogaaminayo ergeyga gaarka ah ee xogayaha Jamciyadda Qurumaha ka dhaxaysa Nicholas Haysom madaxweynaha way la kulmeen ujeedada shirku waxay ahayd isbarasho ay runtii ahayd waa markii ugu horeysay inoo yimi laakiin iyadoo fursada laga faa'iideysanayana waxa laga wada hadlay dhowr arrimood oo muhiim ah oo ay ka mid tahay arrinka maxay dhahdaa nabadgelyada ama security-ga waxa kaloo laga hadlay iskaashiga Jamciyadda Qurumaha ka dhaxaysa Somaliland waxa kaloo laga hadlay amuuraha la xiriira wada hadalka Somaliland iyo Soomaaliya iyo amuuro kale oo labada qoloba mataqaan ay daneynayeen shirkaas si wanaagsan buu u dhacay si fiican oo qurux badan buu u dhacay una dhamaaday. Thank you. I have had a good opportunity to discuss with the President the recent changes in the region, the challenges facing Somaliland, and of course in that regard we touched on the conflict in Turkarek, in particularly how that conflict can be managed to avoid any conflagration, any eruption of hostilities in the short term, and a long-term solution for that conflict. And we, of course, would also have discussed relations with Somalia. The discussions were candid, frank, and have been very useful. Thank you very much.